هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودائما أبريها دي كم غنيد أو أي نانس أركن runtii busy baan noqday saas darteed baan baryahan uga soo muuqan youtube-kaygii wada salaamayaa runtii dhammaantiinba allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa ali sayidina maxamed kama sallayta calaa ibraahim wacalaa ali ibraahim innaka xamiidulmajiid waxaan weeye runtii maanta waxaan arkay inantii farxiyo cabsiiye oo burco iyo hargeysa saa ugu rifaysaan waxaan ay tiri ayaay rag naago kufsan karay tiri waxa weeye horta farxiyo mid baan oranaya dumarka Somaliland mid baan oranaya raggan mid baan oranaya horta farxiyaan ku horeynaya farxiyo cabsiye wanaga dhikida wanaga yar kulli dhalinyaro ah oo yar ka tagtay wadanka وانا كوكورتي وقبل كوكورتي ناقي ومدنا وحوي وحي كوكورتي قربة runtii wax badan markay ka hadlayso inay analyze garaysaa bay ahayd oo baadho dadka weydiiso inkastoo aad kelmadda iyadu say u waday aad ka bedesheen oo aan arko inay bedesheen oo meel kale u kaxayseen dadkiina Soomaaliduna waa dad dhib badan baa tihiin oo iska wax yaraan macna lahayn baad cirkaa geysaan horta dumarba hadii laga hadlo xaqooda ragow waa ina xanaaqda waa ina dumarka qofka u sameysaan ba mixnad waa ina u sameysaan waa shaqadiinaba dumarkuna iskama keen gartaan oo ma yiraahdaan warde been ma aha waa run inaga taga ma yiraahdaan marka farxiyo waxa la farxiyay horta walaalo dadkeena dhaqankeena asaliyan kufsiba ka soo jeeda halka hadalkiisa loogu tago ilaa iyo weligeedna wax soo dhici jiray toddoba la iskaga dhalay kufsi dadkeenu dee noloshan heer bay taagneed hadday mala ugu wanaagsan yihiin anigu waxaan aaminsanahay waxa dadkani kuula yaaban yihiin ee kuula fajiceen islaam toddoba kufsi lagaga dhalay miyaa yeelaysa farxiyaa odaga yaanu ku kufsanin farxiyaa tidhi yeeli mayso way kula yaaba alla magaala iska dhigaysa midda kale dadkeena maskaxdeeda waxa ku jira wax la yiraahdo qofkaas qurbiga ka yimid haday maqlaan waaba gaaleynaya waxbuu gaaleynaya hadalkii gaalada iska yeelayeen wax noocaas oo ma yacni ma meynara ku jira dadka qurbaha jooga way ka dhaqan wanaagsan yihiin dadka Somaliland jooga maanta ama Soomaaliya ba jooga runtii programka say inantu uga hadlaysan waan ka helay programkeeda waan daawaday وانا لما يستهونتي آد بانو غهرة كلمة الله يعدين إلا أرادين إيدي وريري سينة وكلمة لقنا فرحية كلمة داني ولقن كينو دنبا كفسي كوسا ليسن ما كهلا يانو دادك هبلا الحوغة يمانتا يلا ديبا يماها تدوى على قرار الكفسي هبين كي أروسك أحيد إلا كيني أيا إريد كل برابا شاكا ذاك شاكيني إنا باوحو يلي حمر جوجا وحي كشكي نين صاحبكيسا وحي صاحبكيبا يجي مال ما كميدا وحي ونيو هو وان غورسنيا وايي بان كوربي وحي gabadha nafti ilaahay bay keentay habeen walba roorsi kuma jiri karo afar iyo shan ka dhalay marka waayahay biiti marka wax raabay inaan guursado gabadh kale guursado oo raali ah waayahay biiti gabadhii bal waxay dawaayadii saas jirtay iska guursaday uu guursaday gabadh kale caadi u guursaday gabadhii day la horsi waxa ma taqaan caadi qof caadi doonaysa oo noloshii dhabta ahayd oo ay fahmaan ninkii waba soo rogan ba waayba haba ka yaabin xageeda u eeg waay mari ku dabinayaa midin kaari lahay ku riday ayay biisay oo hoojisay ereriyo aan ku ereriyada cayar carar shan casho markay naagti carareysay bay maanta ka wariyaa carar ku jiri meeyna ila wax waalan man habeen walba sarraa ridi meeyno jibin meeyni waxaad yeelaysaa in adeerow orod meeshaad ku noqo ninkii buu tago wuxuu ku warnayo dhibaatadii waa de orod hadoo erigaaga qabsabuyo dad tiiga caadiga hadna la qabsan weeydi marka waxaan uga jeedaa nolosheeno dhan dadkeena shacabka ah ilaa xaawiye aad intii aynu soo jiray inta Soomaali maqleen inta baarhoorsiga iyo baacsiga lagu jiraa waxa qurux badan marka doonaysid inaad dadka waxa ka baabiisid sidaadii hore ee barnaamijyadaadii oo kale inaad dumarka Soomaalida horta u sheegtid inaana waxaan wax qurux badan ahayn si ay isaga daayeen kuwii hore tage
kuwii hore in adeer tagay oo soo noqon maayaan laakiin dhalinyarada dambe si ay uga faa'iidaystaan inaanay qurux badnayn in lays eryado inaanay qurux badnayn sariiraa la jijabiyo inaanay qurux badnayn ay qurux badan tahay si caadi ah oo dad caadi ah oo markii horeba jacayl bay hadda dadka way jecel yihiin dhalinyarada hadda joogtaa waayo jacayl bay soo jiraan kuwii hore jacayl bay yaqaaneen inaan walba inta guri la soo hebel la siin jiro budhbaa dooda laga kaxayn jiray iyagoo eryanaya bay guriga la geyn jiro garanba mayso ninkii way ka cararaysaa budhkuu la qabsanaya waaba dilaya hadduu doono cidina odhan mayso maxaa dishi sidaa hadda lagula yaaban yahay adigu hadda waxaad leedahay dadkan maxaa ka khaldan oo waad la yaaban tahay dadkani dhaqankoodii bay leeyihin dhaqankii baa nalaga bedelayaa ilaa islaam walba 7 baa laga dhalay xaawiyaadaba 7 laga dhalayay markaa dhaqankan maba yaqaaninba maba garanayaan iyadoo horaduu imanayaado lugtaasuu ku dhegayaado gebigeeda intuu saa u kala maroojiyo oo ilmaha yara shaqayna dhinaca isaga riixo ayuu hawshiisa qabsanaya wuu iska tegaya waa dhaqan habi bay ku tahay marka waxaa qurux badan maadaama aynu reera roorsinahay inaad dumarka horta kasoo bilowsa heer dumarow wixii hore way tageene bal waxa dambow ishagaajiya sababta lagula yaaban yahay waa dadka ayaa sidaasa dhaqankeenii hore ayaa adiguna tiri odayga islaantiisa khasba waaba khaldan yahay way buu khasbay ma uma baahnaba ay waxa baahidooda waa dilkaasi mayaga baahi kale ma yaqaana gabadhu mayadaaba odhan karta ninkeeda intay u tagto hebel waxaas baan anigu dee adaan ku doonaya maba odhan karto shikaan isagu markuu doonayo wadaantiisu tirsanaya feeriyalaad buuna ku leeyahay weyn iska tegaya iyadu ma kayftay ma laha ma waxaasba shaqadooda maaha dhaqanba ma aha dee ma naagina maba odhan karto ninkayga haa hebelow yaa ma odhan karto mana odhan karaya iyo bay odhanayaan marka waxa weeye dadkaas noocaasa baad intaa tagtay waxaa ku tidhi dumarkaa kufsanina waxay moodeenba inaad kala wada furtay bayba moodeen adeer markaa ma aha mataaltigooda dadka waa saas waa dhaqan waxani dhaqankooda inaynu la ititibino oo naho saas ma aha oo aad wixii yacnaa jacayladii iyo wixii ku yar bedesho ku yar subadido yar hagaajin laakiin waa nin naagta qabtaha kufsanin dee nolosha kufsi hadda suu yeelayaa miyuu iska fadhiisanaya sidii naagta ilaa noloshani waa kufsiga gabadh intay soo hagaajiso oo intay soo diyaar garowdo oo isagii soo diyaar garowdo oo halkan la sheekaysto oo la kaftamo oo la faraka ciyaaro oo la iska qosqoslo oo wax la isweydiisto si yaroo habi wax loo kala qaadanaya ma jirto waa dhag iyo ulqabasho weeye caawu dilaya hadduu doonto bur la dhacaabo caawina doonaya ka qaad gaalada way leedahay iyada lafteedu stiimkoodu waa qaar baa jira burka iyo usha iyo waxaa yaqaana laakiin qofkan waa cillad uu ogyahay inuu leeyahay qofkii kalena wuu u sheegay xunay cilladaasaan leeyahay saas iyo saasaan jeclahay saas iyo saasaan doonaya anigu markaa aan doonaya inaan hawshaa galo inaan saa iyo saa sameeyo waayahay buu odhanaya marka runtii taasi waa taa oo waxaan u malaynayaa arrintaas inay ahayd arrin adigana aada u arkaysay wanaag hablaha la kufsanayo lagama hadli karo naag baa wax lagu sameeyey cid ka hadli kartaa ma jirto naaguhuna weligood baa waxaa inanka laynoo lahaa bay laynagu abayuusay inan xaq naag doonan karta xaqeeda doonan karta xaqeeda ka maqan ma jirto ka maxkamadda joogaa odhan maayo war naagta xaq baa ka maqan ma odhanayo naa oradooda waa waaryaal miyay dadkeedu qabtaan reerihii baa kula yaa kula allah bisi maxay tiri caawdu billahi shaytaan maxay tiri ka waxa weeye waxani waxa weeye waa long distance bay isu jiraan iyo halkaad ka hadlaysaa long distance bay isu jiraan runtii markaa dadkani long time 10 years after 20 years maybe oo dadkan hadda caruuraha shukaansanaya jacaylka metelaya caruurahay dhalaan oo kale yes maxaa caruuraheena qochada ka wada qaaday bal caruuraheena maxaa qochada ka wada qaaday waxaad arkaysaa caruurta ugu dhibka badan adduunka waa Soomaali ilmo kale halkaa fadhiisan maayo waa carraya wax roorsi lagu dhala gebigeeno dhan baaba raf Soomaalida gebigeedaba dhiig kulul iyo qaxar iyo qata ka samaysan marka waxa weeye waxaan oran lahaa farxiye taas runtii way waa adigu sax baad ahayd oo waa run qofku xaq wuxuu u leeyahay waxaan ugu baahnahay maantaan u baahnahay inaan la khasbi karo isba lama khasbi karo iyadoo maanta halkaa jiifto oo doonaysa baan awood u lahayn ay ku tahay war ku baahanay no marka inuu anigana markay aan warda ma diyaar ma yahay naga uu iska tago xaq baan u leeyahay laakiin dadkeeni ma kula garan ila nolosheeni ba kufsi yahay nolosheeno dhanba erigaasa midda kale kufsiga waxay u haystaanba kufsiga kasinada iyo kaxaasha iyagu isku meel bay isugu keeneen oo waxay moodayeen inaad ka dhigtayba
kufsigiiba xaaraan laakiin kufsigu waa xoogid kelmadda kufsi horta waa in laydin macnay waa xoogid waa qof xoogay marka ama ha qabo ama yuu qabin waa qof xoogay weey marka waxa way xoogidii meeshii ba kufsiga isugu imanaysa hadduu qabo xoogo waa kufsi hadduu xaaraan tahayna waa kufsi marowna waa kufsi marka waxaa la runtii aad iyo aad baan uga xumahay dumarka Soomaaliland waxaan u sheegay dadka dumarka Soomaaliyeed dhaqanku waa la kala yar dhaqan adag xoogaa dhaqanka waa lagu kala duwan yahay runtii oo dadka reer koonfureedka ahi inaga dhaqan duwan reer waqooyi horta wax la mid ah ma aragba waxa weeye dumarka Soomaaliyeedo barta nolosha dhabta xagasho iyo khasab iyo adduunkan maanta ma joogno aynu wadan caalami baynu joognaa waa ilbaxdeen miyigi ma joogtaan dadka miyiga loo dul qaadanaya laakiin kale in dul qaadan maayo qof magaalo joogo waxba garanaya nolosha waxay tahay ragga laftiisa idinku dhiban raggan laftooda ayaa idinku dhiban nin uun si caawa islaantii baan doonayaa dagaal baan si xaydanaya isaga laftiisaaba dulma maalin ugu aamisana midda kale ragga Soomaaliyeed marka anigu adduunka aan maray aan wada eegay rag ka gobsan waa yari halayna kufsado waa la kufsadaa kufsi wuu jiraa ma ka hadlaan wadaadadu kama hadlaan kufsiga habla dulmigooda kama hadlaan dumarka dulmigooda cid kama hadlaan afar oday baa isu tago yahda uma dhimaynu naagu dilayna ma naag loo dili maayo nina qarkan ma garanayaan waxaan inay naf tahay waa dhaqan xun oo inagu ragaaday baynu haysanaa lamana baabin karo wax si yar ku baaba'aya ma aha marka inaynu wacyigelin uun u samayno oo loo sheego oo waxaan maxay ku dhacayaan waxaan in la bedelaa qurux badan oo dadkan hadlo oo dham ay waxaan ka hadlaan mooyaane qof qura inuu waalan yahay loo haysta oo wadanka dhaqan kale la timi waan maqlay dad kale loo barkay qoomaluud baa yimi iyo wadankan ay aad joogto inta xun ba hadda badan inta war xumo tashiilka abaa badan inta xumaanta warinaysaa badan hadal yar oo macna lahayn ba wax laga dhigay wax weyn marka don't give up adigana hawliya jabin ha moodin inaad khalad samaysay khalad maad samaynin laakiin dhaqan baad ku dhex dhacday ari dawac ku dhex dhacday soo kala yaaci maayo dhaqan Kenya oo soo jireen waligeen ba aynu ku jiray ayaad mar walba ku dhex tuurta dadna waa ku isla ogsaday marka waxaad ku tiraahdaa waar is kufsado oo is ereeriyada oo is bacbacsado lif maalon isariyada dumarka Soomaaliland joogan ama Soomaaliya joogan waxa leeyahay nolosha dhabta ah ee xaqa ah ee aad adigu leedahay baro taad adigu xaq u leedahay baro ee Ilaahay ku jideeyay diintii baa lagu khaldayaa dhaqan iyo diin baa la isku khaldiyaa diintu waa waxa uu macaan ee uu sheegay nabigeena Kaleey salaam inooga tagay qof qura oo ku dhaqma ma jiro diinta waxa la isoo adeegsadaa marka dan la leeyahay ayaa diinta la isoo adeegsadaa dan marka qof la leeyahay ayaa diinta la isoo adeegsadaa runtii marka waxa la lahaa in adeeray quruxay meeshan aad joogto iyo dhaqankan aad ka hadlaysid iyo waxaan waa wareer dumarka Soomaaliland joogan ama Soomaaliya joogeen dhibanowna deedinka dhibkaas ka qaadi kara cidna kama qaadi karto cid ka qaadi kartaa ma jirto qof kasta isaga qaadi kara dhibkaas ka qaadi kara marka odaygiina waa inaad isu diyaarisan raggiina waa inaad doontaan iyaguna waa inay idin doonaan ma aha inay is eriyataan waliga xawiyaada ma inay sariyeen qarnigii waxaan joognaa afartanaad baa horta hada anyway halkaynu joogno generation kaynu joogno maanta waa garanaysaa waxa weeye maaha in maalin walba lagu khasbo oo isaga laftiisa hurdada ka kaxayso si ku eriyanayo sariirka Soomaaliland adoo ku fadhiistay shaqaaq ba ka yeerisay ila waa maalin walba dagaal ba fighting waa la isoo diyaar garoobay fight ba ka soconay marka waxaan leeyahay in madarayaalo dagaalkiis ka daaya wanaag qurux jacayl xubbi yeedid macaan kelmado wanaagsan oo la is yiraahdo ubadka xitaa ku qabooba ku dhasha ubadka xitaa ku dhalanaya ayaa ku dhalanaya nasteexo iyo macaan iyo farxad iyo jacayl laakiin haddaad maalin walba dagaal ku jirtid oo biyo grim loo ordaya galaan oo mid yar grim ka soo dhaco oo haddana afar adigu grim yahay carro oo halka budis la taago waa wareer barta
cool down si qurux badan life qurux badan family qurux badan dayac wuu iska badan yahay balaakiin aan ku heshiino saynu u soo saara ubad qurux badan hadda waad arkaysaa reeruhu isku mid maaha reerka habbiga ku nool ee nolosha macaan ku nool ee qurux badan ku nool ubadkooduna waa ubad dhisan oo qurux badan oo wanaagsan runta marka laga hadlo laakiin reerka dilka iyo feerka iyo laadka iyo qacda iyo bufta ku nooli ubadkooduna waa feer iyo laad iyo qac iyo cay iyo aflagaado iyo soo saa ku cay weliba hadda dhaqanka taagani waxa weeye dhaqan absolutely meeshiisiiba ka tegay kaanu naqaanay maaha kaan anigu arki jiray ma aha dadka waad la yaabaysaa ilmo yaroo dhowr iyo 20 jir oo waxa qof weyn u tirinaya qof weyn caayaya waad naxaysaa marka dhaqankeennii baa hadda gebi ka laalaadaba intaan basarin la isugu iman dhaqankii baa baaba'ay oo tegay marka waxaan leeyahay dhaqankan ha loo soo noqdo inantana carjaajumeynta ka daaya waa gabadha dhakeyda waa gabadh fahmaysa laakiin wararkaysa wiro filin yaroo loo bilay ay samaysay laga soo gogoostayna waa arkayay jaahiliin caqliga jaahil ka tihiin qof quruntu hadday caqliga jaahil ka tahay oo jaahil tahayna hadday xitaa wax barto waa jaahil hadday xitaa wax barato jaahilnimada ku jirta marka jaahilnimada iska daaya waxaynu joognaa 21 century ها كخلدن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يابا أنا أيش كيجي بالهاي ستيرو هاي سفير فيرة عروها يريال دمبر دلالية بالهجاتي عروها رأس صار لا صباح ومحبوه يتعالي روماتو كل على لا إله إلا الله محمد رسول الله والله والله ورير ها هاي تري هاي ده تمر كيكو حكوك عاي تمر كسو كوفسي مرة بقى وادي سلامة يا ولا يا بالله ولا كنت سنة دتك كهريسة إلى عباس عبسياي كنت سنة أياد كهريسة دتك كنت سنة كدب بيكسو جاري هكذا ما تاكنتها after 50 years كدب سوق إنه كسو جارين لكن هذا هاب كاغا يميدو دوتور لمايان عادنا ويدي سلامة يا لما أنتين